taliska ciidamada militariga ah gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne ku soo bandhigay qaraxyo iyo miinooyin laga soo saaray qaybo kamid ah guryo ku yaala magaalada Beledweyne sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena gobolka Hiiraan Qaalid Kacse. howlgalla baaritaan ah oo ay ciidamada dawladdu si isdaba joog ah uga fuliyeen afartii maalmood ugu dambeysay qaar kamid ah xaafadaha magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne ayaa ciidamada dawladdu waxay howlgalladaasi ku fashiliyeen qaraxyo miino kuwaas oo qaarkood la sheegay in lagu aasayay qaar kamid ah wadooyinka magaalada halka kuwa kalena lagu diyaariyay xaafado ku yaala magaalada Beledweyne sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka militariga gobolka Hiiraan. taliska guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa Beledweyne ku soo bandhigay qaraxyadaasi ciidamadu ay howlgalkaasi ay ku fashiliyeen. Colonel Faarax Cali Waasuge waa taliyaha guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxyadaasi ciidamadu ay fashiliyeen iyo waliba ujeedka howlgallada ciidamadu ay ka sameeyeen qaar kamid ah xaafadaha magaalada Beledweyne. waxaana uu sheegay taliye Faarax Kooshin in la burburin doono ama ciidamadu ay la wareegi doonaan guryihii laga soo saaray qaraxyadaasi la soo bandhigay. waa u jeedaan arintii ummadda Soomaaliyeed wixii lagu gumaadayo waa qaraxyadii waaye musaamirtaas waa aragtaan baalaan waa bahalay ay TNT-da ay ku jirtay waa kuwana batirigan waa u jeedin bahalay lagu cabeynay oo la sameeyay waa u jeedin musaamirtaas iyo qaraxaas iyo baaruud lagu cabeynay fuyuusidii lagu qarxinay waa kuwana waa arkaysiin kooladii lagu xirxirayay birtii qarxaysay oo dadka laynay waa u jeedaan fiilooyinkii waa u jeedaan rumuudyadii lagu qarxinayna waa kuwan labada xabon gacantaan ku hayo qoriga waa u jeedaan waxa laga soo qaaday meeshii xalay gurigii xalay lagu soo qabtay ninkii cadawga hay dileen ciidamada xoogga dalku mobilkaas waa mobilkii lagu qarxinayay oo aad garan kartiin waxa ku jirta simkaar badan ilaahay mahad iska leh ummadda Hiiraan gobolka Hiiraan degan ayaa alaabtan la rabay in lagu gumaado ama ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan la rabay in lagu gumaado waxaan iyo wax ka badan oo la soo qabtana way dhiman yihiin oo waa la soo wada hadda waa la keenayaa ciidamadii soo qabtay aad iyo aad ugu mahad celinaynaa howlgalka iyo saraakiishii sameysay howlgalkan aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa waxaan bulshada Soomaaliyeed u sheegaynaa nimankaas ninkaas 3 bilood oo magaalada Beledweyne degan yahay sida ay noo sheegtay xaaskiisu qolka uu degan yahay lama rabo qol kale oo alaabta oo ku sameeyay jiray islaantiisu ma gali jirin wayna xiran tahay hadda ayadii 2 caruuro waxaana loo sheegay ninkaanu inuu ahay ninka qaraxyada Beledweyne ummadda ku baabi'iyay dhiga xerooyinkana sameeya isku xirka buuraha galgala iyo sameeya meesha la yiraahdo goboladan dhex ninkaas magaciisa Cabdullaahi la yiraahdaa waa la soconaa muddo dhow inuu xamar ka shaqeey jiray markiisii horena uu ka yimiday dhinaca Puntland sanadadan uu xamar ka shaqeynay haddana gobolka Hiiraan uu soo wareegay waa daba socon 2 qodob uu qaabilsanay qaraxyada aad u jeedido asigaba gacantiisa lagu qabtay xalay iyo abniyaadka wax dila mustooladleyda intaas uu qaabilsanay guriga alaabtan lagu soo qabtay waa la wareegaynaa militariga Soomaaliyeed gurigaas iskale waan degaynaa haddaanan deginna waa burburinaynaa howlgalkaanuna waa soo u bilowday ninkii isdhaha 4 biriyan intay soo socdaan ay jiifanaan wallahi billahi tallahi inuu socon habeen iyo maalin uu soconay ilaa aan cadawga ka dabar jarno oo dadka Hiiraan ay nabad ku hurdaan. dhanka kale taliyaha militariga gobolka Hiiraan Colonel Faarax Cali Waasuge Faarax Kooshin ayaa digniin adag u diray ganacsatada magaalada iyo kuwa leh guryaha ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. dadka ganacsatada ay ku soo dhuuntaan oo dhaqaalaha siiya oo la soconaa laba dawladood meesha ka jiri mayso 2 dawladoodna ganacsatadu ma siinayso lacag hal dawladay sii doonto dawladda Soomaaliya oo la yaqaano ayay siinaysaa haddii aan ku helno ganacsato qarash bixisa oo al-shabaab siisa balse uu Hiiraan ku joogo ku ganacsana marka inuu ganacsado rabaa baabuurna intuu al-shabaab u gadaa qarax la soo gelina
waxaan uga digaynaa bulshada degan magaalada beledweyne arrintaas ciddii aan dib daba ugu soo qaban wallaahi bilaahi tallahi inaanu socon waxaan mar labaad ku celinay ciddii guri ka kiraysa al-shabaab iyo daacish iyo al-qaacido iyo al-hebel iyo al-hebel ciddaas iyo annagu waa isku maqannahay ha ogaadaan waa isku maqannahay ciddaasu gurina waa wayni gaadiid hadday haysteen waa waynaan garaash hadday lahaan waa waynayaan dad iyo oday hadday lahaayeen iyo dhallinyaro waa la wayna cidda dhagar qaba guri ka kiraysa Khalid Maxamed Ismaaciil Kacase telefishinka caalamiga Soomaaliyeed beledweyne